hop! hawadana waxay u baahan tahay awood kelidooda guda jirnay shaqada arihi miidada si nabad ayaa lagu soo bixiyay isla markii xilka booliska Soomaaliyeed mudan ra'iisul wasaare wuxuuna ku fadhiyaa qiimo aad u sareeya in eegaas la tababaro maalintii laga soo bilaabo 1943 oo wada garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqeynayeen inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliyeed 74 sano ayay waxay ku jireen qoro isdhiib 74 sano ayay waxay ku hormariyeen naftooda dadka kale Soomaaliyeed si iyagu ay annaga noo siiyaan nabad aan geedaan hoostooda ku harsan laakiin maanta aan intaas isugu nimid mar labaad waxaan leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed xafladan qabanqaabada markii la sameeyay waxa ku nafweysay 17 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed 17 kaas haddii aanay naftooda bixin maanta halkan lama joogin laakiin annaguna ma ilaawi karno 17 kii halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid ah I believe that this is a significant day because the Somali police is being reconstituted. The challenge there actually is that the federal government and the Somali police have to make sure that all this support is coherent because what we need is one doctrine, one procurement system, one way of doing things. We don't want to end up with a situation in 5 years' time where there's lots of competing ways of doing policing.